kulanti aboon daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal kale haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad hore uga joogtana muuqaalka like noo saar barnaamijkeena caawa boqorada isteelka iyo boqorkeega haykal oo si wada jir ah codsi ugu soo diray dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyaga oo waliba ka codsaday in sidii quruxda badnayd ee xafladooda looga qayb qaatay arintana looga qayb qaato oo waliba si degdega loo fuliyo inta aanay boqorada isteelku Hargeysa tagin inay hawshaasina qabsoonto hawshaasi iyo faahfaahinteeda xagga dambe ee barnaamijka ayaynu ku sheegi doonaa balse marka hore waxaanu idin haynaa dad badan oo xafladoodii quruxda badnayd siyaalo kala duwan doonayay inay u shaabadeeyaan lamaanahaasi da'da yar ee ku jira maalmihii ugu farxadda badnaa noloshooda doonaya inay tashuush kaga furaan balse dadkaasi waxay qaadi karayaan ma jirto bal muuqaalada dadka qaar hadalladoodii aan la daawada maariya boqorada isteelka meherkeeda dad badan oo waaweyn oo gar iyo gafuur leh oo dhahaya arkay Hargeysa hadaa tagno nalama xiraay gabaray naga qabaan dad dhahaya horta arkay goode oo niman waaweyn mid su'aal idin weydiina horta Hargeysa America u malaysiin waxa garad Soomaan Muqdisho America ka dhigan kartiin Muqdisho dhul nabad waa ka dhigan kartiin Muqdisho ku dhalateen oo ku nooshihiin ma fahanti Hargeysa haday nabad tahay dadkii lahaayeen nabad u tahay waxa garad Soomaan maalin walba waxa ku naanaadaysiin oo ku nabnabaysiin Hargeysa war Hargeysa dad baa dhisto iska leh waxa ku dhameesha joogtiin dhistano mid xigta oo la yaabana waxay tahay waa ogtiin gabadhiina waxay sameynaysaa boqorada isteelka waxay sameynaysaa caadi ma ahana ku dhaani gacana u taagi waxa garaysan idinka wax walba og oo wax walba ka baxsan waxaan ku dhahay caadi iska dhiga caadi hal iska dhigo waxba isoo riixay intaana wax badan qarxinin caadi iska dhiga mid xigta anagu waxba ma ogin balse kaliya waxaan ognahay Hargeysa waa magaalo Soomaaliyeed Hargeysa dadka degan bay magaalo u tahay muuqaalkeena ku xiga waa gabadh iyadoo inta indhaha isku qabatay niyeysatay inay booska boqorada ku jirto iyadoo kaga habboon tahay kadib waxaa u soo diraysaa hambalyo jeesa boqorada isteelka buug iyo qalin soo qaado waa lagu aroos mooho waxa arkay sawiraan oo la duubay aniga TikTok markaa kula taliya waa blockta oo malena TikTok waa laga xidhay waaba ku waayay laakiin inaan lagu soo duubay arkay oo ma arto oo aroos aan gashay marka ugu horeysa aniga hore kugu soo hambaliyada aragna soo fiirsan runta farta ka soo saaray marka ugu horeysa waxa taada ku siinay waxa waaye ninka gurstin ri qoy waaye waa nin qurux badan waa wiil kugu faraxsan saafri wadisa ka arkay ma sha Allah haykal wallahi waa wiil kugu faraxsan الغوي وضاعت أبايو ويلكاس هذا وضاعت وكوي كل رقم حمرك وحي قانين مسق ماسق يكرشوا مرشي بلا يقانين وحاري وغوي ما يقانين وغوي قاعد يقف كنكري وغوي قاعد كاسي جنس ده وكاسي جنس ده كوسو جدا وكوسو جدا انتو كوسو جدا كفائدة سو قلبك يصدق ده كله حتى هو كوشيجا وغوي عمبوله لك معني كرشوا مرش لك معني مضح لك معني علو لك معني حتى كوشيجا وحالك عنا ماشي اسمه قمط hilib suqaar beer waxa salga cuna hadda waa ku sheega cuntada waqooyiga loo kariyo baro Allahumma lana ballaqta asxaabi hadda aniga wala surta u sheega mar raba heerkooda inuu dimo ninkaas ha soo hordhigin kirshow mirish ana waqooyi ka imaaday aniga waqooyiga Soolaan ka imaaday asagana waqooyiga kale ka yimaadeen Soomaaliland diisar laakiin anaga iyaga isku dhaqanaanahay waa isku kursanaa waa isku dhownahay walaalaanahay marka waa ku jeclay gabar reexamaraatay reexmarka dadka adduunka ugu jeclahay reexmarka ma artay waa dadka ugu fiican ma sha Allah subak ya wallahi asxaabta reexmar u badan yihiin marka abay macaanto ani waa kula taliye hadaba wiilkaas calool iyo madax la isku kariim ma cuniyi cambuula ma cuniyi wixii kale maxaa dhahay mishmishow iyo shag leefleefow iyo waxaas ani hada ma aqaan leefleefow ma cuni muufada waa nugu sirteen hadda koor muufada wax cajiib ah maleynaaye iyadoo ma hadlaysa waa laga dhaxadlayaa oo salada yar ee ku jirta xumaantaada ka dhaxadlaysa inay waxay iska dhigaysaa inay boqorada isteelka la talinayso
balse waa la wada fahamsan yahay inay ka mid tahay dadka iyagoo ka xun labadaas lamaane ee ishelay deetana waxay nooga dhigaysaa inay sidan maxamirash caynkan cuntooyinkii xataa waxay kala qaadqaadaysaa soomaalida ee muqdisho iyo howlahan iyo waxaanu ku leenahay adiga filinkaaga aybaa cunay waayahay bal markana codsigii ay noo soo direen lamaanahaasi iyagoo weliba wada jir inoogu soo diray wulay ee boqorada isteelka ka yar muuqato garanaysaa cajiib aroos halka haykal isagu malaha kubad iyo howlahaasi iyo asxaab wareeg iyo waxyaalahaasi ugu jiray bal hadda codsigoogii daawasho wanaagsan. asalaamu calaykum waa idin salaam dhammaantiin meel walba adduunka joogtaan maanta waxaa wataa codsigaasna wax kale maahan sidaa wada ogtihiin heykal cibaankiisa waxaa ku dhegan shirkadda insha allah dhawaan waa lasoo dii doonaa rajadeena way fiican tahay laakiin hal codsiyaa wataa codsigaasna waxaa waaye in 1 milyan waxaa uga dhiman 160 kuna uga dhiman soo ka badana awoodin inaa samaysiin waxaa idinka codsanayaa anigoo gabadhiina ah in heykal la gaarsiiyo 1 milyan dhawaan insha allah inta ah Hargeysa tagin Hargeysa markaa tagno waxaa rabaa farxadooyinka inay bataan oo aan u dawaabtago heykal oo anoo la joogo weliba in xalfadaas 1 milyanka ay dhacdo marka idinkaa samayn karee waa idinka rajeynaa waana idin jeclahay boqorada isteelka waa lagaa dhisayaa hore adiga 1 milyan waa samson baad haysataa haykalna marka intan la gaarsiiyo labadiino oo la isku daro waxaad noqonaysaan 2 milyan iyo bad riyadaasina waxaan rajaynaynaa in la idin rumayn doono adiga iyo boqorkaaga markaad Hargeysa iskugu tagtaan waa la idinka habin doonaa waa la idinka geejin doonaa bal haddana haykal iyo codsigiisa waxaa Maria runtii dawad dareemi kartaan waxa weeyaan waxaad ku fikiraysay in rajo ka yeelato oo hal mar iska plus ka maqnaada waxa weeyaan report badan oo laga bixiyay ay shirkadu haysataa marka dhib ma lahan waxa weeyaan anigii baa ka nool deeninkii baa jooga oo halkan soo gaarsiiyay runtii waxaan leeyahay rajadeedu horta 1 milyan bay ahayd oo dareemi kartaan rajadeedu 1 milyan bay ahayd inaan 1 milyan gaaro markaas xataa qaaliga idinku badan maayo kala waa awoodin inta ay ka badan 160 ku kaliya taanima markaas xataa qaaliga hal codsi weligeed ma soo hortaagan waxa weyn tahay Maria imanayso insha Allah billahi ta'ala farxadina aniga Maria noo dhamaato oo qaybsano idinna nala qaybsataan idinku farxadina ka shaqeyn kara والله سبحان محمد idinku farxadina ka shaqeyn kara haykal ولقيت مسؤول استاذن وعطسي maadaama ay dumaashadiin soo socoto reer Kiisow ka habeeya 1 milyan hal gaarsiiyo haykal si ay rajadooda iyo riyooyinkoodu ful ugu noqdaan wuxuu yiri hadaf ardahayd ama waxaad muddo badan ka soo shaqeynaysay oo mar kaliya aad weydo xanuunkiisa ay leedahay waa run akoonkana in badan buu waday haddana waxa cilad farsamo ayaa jirta marka Soomaaliya idinkii baa jooga iyagii baa jooga maantana intaa iyo in ka badan waad gaarsiin kartaan guud ahaan barnaamijkeennii caawa intaas ayaynu ku joojinaynaa waad ku mahadsan tihiin sida aad mar kastaba noo garab istaagtaan noo like garaysaan noo share garaysaan waxaanu idin leenahay